قبيل ويدا ورجلي إيجادا قبيل ويتولي إيجادا قبيل kulanti wanaagsan akhyaarta faraha badan ee sida taxanaha ugu xiran barnaamijyada xiisaha badan meel kasta adduunka daafihiisa ka joogtaan waan idin salaamaya ka rago haddana saar jarajarada fankiya suugaanta ninba si ayuu u soo karaa nin isagoo jeebkiisa miciinsanaya oo maal iyo adduun ku bixinaya ayuu ku soo galaa fankiya suugaanta ninna waxa uu ku soo galaa isagoo leh tollaayo iyo reer hebela bii kaca oo showyadayda camir ah oo heesaha aan soo gelo youtube-ka soo geliyo ii daawada oo hee miciinsanaya qabiil iyo qabali wax la yidhaahdo ayuu soo galaa fankiya suugaanta ninna waxa uu ku soo galaa fankiya suugaanta codkiisa hallaasiga ah ee ilaahay ku manaystay iyo hibada ilaahay siiyey ayuu ku soo galaa waliba dadka codkooda ku soo gala waqtigan aynu ku jirnaa waa dad aad u yar oo fara ku tirisa haddaba waxaa jira fanaaniin qabyaaladii iyo cufsiga ka buuxda ay intay uurkooda soo dhaaftay afkooda ay ka qiranayaan oo iska daa inay afka ka hadlaane markaad wejigooda aragto aad arkayso qabyaaladii oo marya loo soo xidhay inay yihiin oo tolo maanta ayaa ka hadlaya waa fanaanka fanaan lagu sheegay balse aan fanaan ahayn ee khasabna lagu baray waa fanaan Omar oo qabyaaladii iyo cufigii ifka uga soo baxeen waliba intuu qabyaaladii dhaafay heer waxa uu gaaray meesha la yiraahdo Jubbaland waa maamul goboleedka Jubbaland oo maalmahan hadalhayntiisu badatay iyadoo madaxweynaha meesha jooga ee lagu magacaabo Axmed Madoobe uu meeshaas xoog iyo cagajugle ku qabsaday iyo waliba tollaayay ayuu taageero mug iyo miisaan leh u muujiyay Omar halka fanaaniintii xitaa ay isku beesha ahaayeen Axmed Madoobe waa jifida uu ka soo jeeday aan xitaa kaba hadlinba bal ka waran ninkan odayga ah ee lagu magacaabo Omar waxa uu ka soo jeedaa sidaan maqlay Garowe waxaanu taageerayaa madaxweyne ku sheega doorashada feega ku soo baxay ee lagu magacaabo Axmed Madoobe waa wax aad iyo aad looga xumaado markii horeba inagoo la yaabsanayn ninkan odayga ay khasabka layna ku baray ee la yiri waa fanaan waliba heesta ugu horeysay calaamad su'aal baaba saaranba waa heesta barbar la yiraahdee markeeda horaba iska ahaydba jawaan maran oo uu laalaadsanayay heestaas markii ay soo baxday waa tii reer Djibouti abwaan reer Djibouti ay sheegtayba oo waxaaba ahayd markeeda horeba mujaajiraysta reer Djibouti ah erayo uu adeegsanayay oo ninkan intuu la soo haday hees ka dhigayba waliba ninkan fanaan muu ahayne nin riwaayadaha isku dayay inuu matalo balse aan xitaa mujaajiraysta dhabaan ahayn ayuu ahaa laakiinse waxa fankiya suugaanta madax u soo galiyay waa qabali iyo tollaaye iyo reer hebela bal hal daqiiqo ila milicsada muuqaalka uu soo dhigay bartiisa Snapchat-ka ninkan lagu sheegay waa fanaan Master Omar adaa yaabi doonee yaab hore uma darage ila daawo oo dhul isagoo ku heesaya erayo qabaliya waa wax aad iyo aad looga xishoodo dhageysi wanaagsan wata Jubbaland dhaqaaqday wata jidka toosan qaaday wata tarantaadi fuushay wata Jubbaland dhaqaaqday wata shawareerki diiday wata championki qaaday coming soon Jubbaland my people the big legend the one and only Wandere libaax tadaba libaax ka dhashay warfaa sida aad daawateen ama aad aragteen ninka lagu magacaabo Omar ee lagu sheegay fanaan ma aha fanaane waa forgery waxa uu taageero mug iyo miisaan leh oo qabyaalada oo waliba cadaan ah oo maryihii laga saageeray u muujiyay madaxweyne ku sheega feega ee doorashada gacan ku rumiska
ee Jubbaland ku soo baxay. hal su'aal isweydii waxaan u taageerayo xitaa fanaaniintii ka soo jeeda Kismaayo waa Jubbaland ayaan taageerin waa fanaaniinta Kismaayo ka soo jeeda ee qurbaha ku nool ayaan taageero mug iyo miisaan la umuujin iyagoo iska ilaalinaya inay population badan oo codkooda dhagaysta ay ku waayaan qabyaalada darteed balse ninka lagu magacaabo Omar oo khasab layna ku baray aan fanaanka ahayn ma aha wax ku cusub maanta inuu qabyaalad muujiyo qabyaalada waa uu la dhashay inta muddadii uu meelahaas heesaha waraabotaaga ka qaadayay waxa jira marar badan lagu eedeeyay inuu qabyaali yahay dib u xasuuso fanaanka lagu magacaabo Cawaale waxyaabihii ay isku qabsadeen waxa ka mid ahaa sheeko qabyaalad isagoo u muujinayay ama cusuriyadeynayay fanaanka Cawaale qabyaalad darteed waliba isaga iyo reerka uu ka soo jeedaa habeen iyo maalin ay dhibaato ku hayeen fanaanka Cawaale la yiraahdo waxayna u maagayeen reer Jabuuti ahaan soona xasuuso maalmaha ay Cawaale haysteen waa kii muuqaal intuu soo duubay laabta garaacanaya yiri wallaahi meesha joogta ayaan kugu imanayaa oo kugu tumanaya taa beddelkeeda Cawaale oo arrimaha ka hadlayaan isna waa kii muuqaal soo duubay ee si degan oo habboon u hadlayay taas waxay ku tusaysaa ninku markuu fanaan yahay ee uu doonayo fankiisa inuu heer ka gaaro qabyaalada iyo cufriga waa uu iska daayaa waayo reerkiisoo kaliya xitaa kuma filla inay dhageystaan shanta Soomaaliyeed marka la eego inta hal Soomaali oo kamid ah kuguma filla nimankana heesaheenu waabay dhaafeenoo ajnabigaaba dhageystaba maxaa ku kalifi karaa ayaa tirada ninka qabyaalada markiisii horeba waxa uu ahaa fanaan gacan ku rumisa bal isweydii hal mid isweydii madaxweynaha gacan ku rumiska ah ee doorashada feega ku soo baxay sababteebu ku taageeray waayo indhaha Soomaalida waxay eegayaan waa maamul goboleedka Jubbaland dhibaatooyinka iyo tacadiga iyo waliba hadlina hajuuqina lagu hayo ee ka dhacaya indhaha Soomaalida oo dhan baa eegaya waliba qofka damiirkiisu nool yahay ma taageerayo nin madaxweyne ku sheega ah oo ku soo baxay doorasho gacan ku rumisa wuxuu ku taageeray isweydii geesi baa ku sheegayaaba waa wax aad iyo aad looga xumaado oo aad iyo aad loola yaabo laakiinse qof kastoo caqli leh haddii uu ninkan eego markiisii hore wuxuu fahmayaa ninkan markiisii hore inaan fanaan ahayn markiisii hore ayaa khasab layna ku baray oo waliba uu khasab lagu soo galiyay fankiga suugaanta laakiin bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ma fahansana ninkan hab dhaqankiisa xun iyo qaabka uu dhaqmayo si kastaba ha ahaatee waxa ceebtii dunidu dul hooganaysa fanaan ku sheegan foojariga ee lagu magacaabo Omar waliba taageerada uu u muujiyay madaxweyne ku sheega Jubbaland waxa uu ku waanayaa dad badan oo heesihiisa macmalka dhagaysta oo maanta kadib aan dhagaysan doonin waa sidaan anigu u qabee waliba showyada uu ku qabanayo qurbaha ayay wiiqaysaa oo waliba calaamad su'aal la saaraya si kastaba ha ahaatee waxa muhiim ah markuu ninku fanaan yahay inuu hadal kasto afkiisa ka soo baxayo oo u fiirsado oo uu yiraahdo hadalkan saameyn ma ku yeelanaya heesahaaga iyo fankiyaaga iyo suugaantaaga waayo heesahaaga waad iibgeynaysaa waliba waxaad la leedahay degaha ummadda Soomaaliyeed waliba adigoo heesahaaga iibgeynaya heesahaagu ma aha mid aad doonaysa inay ku koobnaadaan aqalkaad ka soo toosto iyo magaaladaad u dhalatay iyo beeshaada oo kaliya laakiinse waa mid aad doonaysa inaad ku raali geliso oo taageero mug iyo miisaan la kaga hayso guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gabagabadii anigu ma jecli inaan ku xadgudmo ama sumcadiisa aan wiiqo daqiiqada ka hor muuqaal aan soo galiyay YouTube-kayga waxaan ku taageeraya hadal ka soo yeelay Deeqa Afro isku qabiil ma nihin isku deegaan kama soo jeedno isku gobol xitaa kama soo jeedno
kaliya wanaagga ay ku hadashay iyo sidaan wanaagsan u hadashay baan ku taageeray bal isweydii kan maxaan uga soo horjeesanaya waa xumaantiisi baa ifka uga soo baxday had iyo jeer waxaa muhiim ah in farta lagu fiiqo halka sartu ka qurunsan tahay qofka xunna dhinac looga soo wada jeesto gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ee ku xidhan kanalkayga ee barnaamijyadayda taxanaha xiisaysa sidee ayaad u aragtaan taageerada uu muujiyay fanaanku sheega foojariga ee lagu magacaabo Omar madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ma saxba ma khaladba sidee ayaad u aragtaa miyaanay wacnayn inuu ku aamuso aragtidaada bilaa turxaana oo ceebka saliina oo qabyaalad aan lahayn fadlan ka soo dhiibo oo nala wadaag gabagabadii haddii kanalka ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana taabo muuqaalkan xiisaha badan lana gaarsii ummadda Soomaaliyeed si ay u arkaan ninkan qabyaaladiisa iyo anshaxumada uu ku dhaqmayo ninkan inaanu hayn fanaan balse uu yahay fanaan qabiil reer taageera barnaamijkii aan idin daadihinaya anigoo daaka Saalax Askar waygaantaas intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قبيل ويدا ورجلي يقدا قبيل ويتولي يقدا قبيل قرما وتاجب لهن دقاقدي وتاجد كتوها سنقادي وتاجرن كهادي فوشي وتاجب لهن دقاقدي وتاجها وريرك ديدي وتاجام بيهم كقادي Coming soon, Jubaland, my people, the big legend, the one and only, Landere, Libah, تدوي libah كذا شيء ورفع. قبيل ويدا ورجلي يقدا قبيل ويتولي